السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال موضوعنا ما أنت يحكوا سابسان عندنا دلك تشاينا. دلك تشاينا oo sanad walba dhaqaalihiisa sii kordhayay ayaa haatan wuxuu ku jiraa kaalinta labaad wadamada adduunka ugu dhaqaalaha badan. magaalada caasimadda dalka China waa magaalada Beijing. dadka horena waxay u yaqaaniin magaalada Peking. magaalada Beijing waxay leedahay airport weyn oo sanadkiiba ay ka dhoofi karaan ama ka soo degi karaan in ka badan 100 milyan oo qof. airportkaas magaciisa waxaa la yiraahdaa Beijing Capital International Airport. haatan waxaa ku socda ama dhismo ballaarin ah oo ku baxaysa in ka badan 3 bilyan oo dollar. sidaas ay tahay kuma filnaan doono inuu xamilo dadka reer China ama dadka reer Beijing oo sanad walba u baahnaan doona inay dhoofaan oo soo degaan kuma filnaan karo. sidaas la ajligeed dowladda China waxay go'aansatay inay dhisto airportkaas airport aad uga weyn magaalada Beijing. airportka cusub oo la dhisi doono waxaa loo magac daray Daxing International Airport. waxaana design-ka aadka u qurux badan design gareeyay gabadh Carabiyad ah oo asalkeeda ka soo jeeda dalka Iraq oo la yiraahdo Haza Hadid. airportkan wuxuu yeelan doonaa 9 dhabo diyaaradood ka duulaan kana soo degaan ama waxa loo yaqaan runway. sanadkiiba waxaa ka soo degi kara ama ka dhoofi kara waa airportka cusub in ka badan 200 milyan oo qof. dalka China magaalo madaxdiisa Beijing oo arrimaha siyaasadda dalka laga hago ahna magaalada labaad ee ugu weyn dalka China marka laga soo tago magaalada Shanghai ayaa waxaad u malaysaa inuu mar walba sii kordhayo. dunida wadamada caalamka waxay aad ula yaaban yihiin dalka China oo sanad walba dhisa kaabayaal dhaqaale oo aad u waaweyn oo adduunka ka fajaciyay. haatan magaalada Beijing oo ah caasimadda dalka China waxay yeelan doontaa 2 airport oo aad u waaweyn. magaalada Beijing waxay xaq u yeelan doontaa in sanadkiiba ay ka dhoofaan ama ka soo degaan in ka badan 300 milyan oo qof oo airportada labada airport ba isticmaalaya. marka China oo noqon doona mustaqbalka fog wadanka koowaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan dadaal weyn ayuu ugu jiraa. wadamada gadaal u haray oo Afrikaanka ah ay Soomaali ku jirto waxaan oran karnaa 10 ayay ka baran karaan. magaalada Beijing ee dalka China waa magaalo aad u qurux badan si fiican nadaafadeeda looga shaqeeyay. caasimadaha adduunka waxay u noqon kartaa tusaale ama waxa loo yaqaano inay mar walba soo booqdaan si ay wax uga bartaan. barnaamijkeena maanta wuxuu noogu saabsanaa dalka China iyo waliba magaalada Beijing airportada kale oo caalamka iyo waliba barnaamijyo educational oo cilmi laga fahmi doono waan soo gelin doonaa. aad ba u mahadsantihiin. please like and subscribe. thank you.